السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وين سلامي دمان ولا الله كحرن جنال كيغا فرتونا حلقي جنال كعيني عدي لمانتين واحد اللي هاي قاعدين رجينا قاري عافمات فرحتي بش إنا كنا ولاتين إن عاوريسي أنا عيني نودي حيا أيان قبان دونا والله وضا جنال بكا بيحي دونا هدو إلهي راهدو إن وريسي أصبحوا ودع دونا سيدا صوص وعطا إن أولاً عيني عدي كسو دو جنال كيغا. السلام عليكم حالك كورا. waxaa ii sheegtaa waxay iga jawaabtaa horta adig cayni ahaan janalkaaga sideed ku buuxisay saacadaha watch hourka oon ognahay dhibka laga soo maray iyo sida uu dhib badan yahay qaabka adiga ku buuxisay janalkaaga ayaa kaa raba inaad noo sharaxdid oo noo sheegtid. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا شيء فرطون علي وان دوهاي وانا معتصنتهاي سيد وناكسن ااد برنامج كذا قروح ذا بدن ااد يقوع عسونتي. اوكي سؤال اد قروح بدن اياد يويدسي aniga cayni ahaan ka cayni ahaan saacadaha waxaan ka soo maray dhib iyo rafaad ee dheelmu lagu buuxiyo saacada sidaan ogsoonahay aniga waxay igu qaadatay ilaa iyo 5 bilood camal inta aan YouTube-ka isticmaalayay oo saacadaha aan buuxinayay qof weyn oo yacni oo maanta reer YouTuber oo weyn yacni ima uusan gacan qabanin laakiin aniga ayaa isku daawan jiray asxaabteyda qaar ka mid ahna way ii daawan jireen qeyr Allah siiyo asxaabtaas asxaab badan ayaa igala qayb qaadatay in ay saacadaha ila buuxiyaan waagaan YouTube-ka ku cusbay oo yacni oo kow bilow ahayn la asxaaba isbaranaysiin soo maahan asxaabtii markaa isbaranay qaara muuqaaladaadii way fiirsanayaan subscribe-ka qaara ku siinaayo subscribe-ka horta bil aan ku buuxiyay bil iyo wax yar kunka subscribe aan ku buuxiyay aniga asxaab badan aan meesha aan iska baranay oo YouTuber cusub ahay markaas haddana kulli maasha Allah qaarkood waa dad hadda saacadaha buuxiyay iyo qaar aanan wali buuxinin marka aniga sidaas ayaan ku buuxiyay watch hours-kayga waan isku daawan jiray ka cayni ahaan aniga ma fahanteen marka insha Allah sidaas ayaan saacadahayga ku buuxsaday waa maasantahay. يعني waxaan wax ka weydiin doonaa haduu Ilaahay yiraahdo waxaad nooga warantaa barnaamijka maalmahan socdo fiyuuska iyo saacadaha la gadanayo maxaad kala socotaa oo su'aalo badan aad iga soo weydiisay maxay tahay barnaamijkaas dooda aad ka qabtid maalmahan su'aalo badan ka soo noqday barnaamijkaas adiga naftarkaagana waad soo weydiisay marar badan barnaamijkaas sidoo maxaa ka aaminsantaa adiga ka cayni ahaan. اوكي ولا شيء فرتون وما هتسنتهاي سيده قروحده بدن aad su'aashaas kaleetana aad ii weydiinaysid horta baryahan waan u jeeday waxyaabo oo isla dhaxmaraayo oo la dhahayo saacadaha ayaa buuxinaysiin views ayaad helaysiin saacada si fudud ku buuxi watch hours-kaaga laakiin ani ka cayni ahaan barnaamijkaas oo baraha bulshada laga wado aniga aad ayaan u dhaliilsanahay oo la dhahayo saacada ayaad gadanaysaa oo saacadaadii ayaad buuxinaysaa watch hours-kaagi ayaa iyow kugu buuxsamayo ka cayni ahaan run ahaantii aniga waan kasoo horjeedaa barnaamijkaas markii runta aan ka hadlo waan kasoo horjeedaa mana ogolaanaye in liidhaho saacad ayaa gadanaysaa saacad ayaad buuxinaysaa. ayna dad su'aal ka weydiin midas ayada ah haddii dadka loo fududeeyay in ay watch hour-ka oo dhibkiisa aan ognahay dhib la'aan loo sameeyo oo lacagtooda loogu sameeyo loona buuxiyo ayagoona meelna u soo marin qofna aan baryin group aan u galin midas ayada adigu maxay tahay dhibka ay kugu hayso. abay fortune horta cidiidaysa malahan in oo views lagu siiyo laakiin waxa meesha ku jira ayaa waxay tahay aniga channelkayga mardhow ayaa xayeysiinta loo furay mardhow ayaa xayeysiinta lay saaray ama xayeysiinta lay furay okay kunka views waxaan ognahay inuu yahay $1 okay
haddaan $1 kunka views u yahay oo $6 aan ka bixiyo 1000 views aan ku gato viewska macnaha marka la gadanayo 1000 views $6 waayaa la dhahay ma fahanti okay $6 ayaa 1000 views ka bixiyay halkii 1000 viewsna waxaa waaye $1 marka xisaabtan 6000 markaa ka bixisid oo halkii 1000 viewska uu yahayne $1 maxaa ka faa'iiday adiga marka ani ahaan waxa u diiday waxay tahay faa'iidadii uma jeedi dadka qaar ay xayeysiinta u saaran tahayne marka ay barnaamijkaas ay galeen weydiisay dhahday maxaa ka faa'iiday kuma sheegaayo shib ayuu ka dhahayaa marka waxaa la dhahay dadka xayeysiinta waa u saaran yihiin viewskooda markay helaan way iska baxaan marka waxaanan aqli galaynin in la sameeyo waa laga fiican yahay aniga sababta aan ku diiday waxay tahay $1 ayaa 1000 views lagu helaa maadaama ay xayeysiin ii saaran tahay waana wax oo yani maskaxda u baahan in laga shaqeysiiyo sidaas ayaan aniga u diidanahay okay waxaa rabaa walaashii Fartuun Cali inaan ayadana su'aal weydiiyo maadaama ayada ay su'aalo i weydiisay Fartuun waxaan ku weydiinayaa maalmahan waxaad waday barnaamij codeyn ah maxaad ooga dan leedahay maalmahan waxaad waday barnaamij codeyn ah maxaad ooga dan leedahay barnaamijkaas codeynta aad noo waday aad iyo aad u mahadsan tahay walaashay qaali Cayni Cadey jawaabta su'aashaas aan ku sheego barnaamijkaas codeynta gabdhaha waxa ugu dan leeyahay waxa waaye in isdhexgal horta marka koowaad faa'iidadiisa koowaad in isdhexgal ee u noqoto gabdhaha youtuberada cusub sababtoo ah laga yaabo qof aan channelkan aqoon qofka kale markuu la tartamayo inuu channelkiisa soo booqdo gabdhaha loo kala codeynayo gabdhaha codka bixinayo inay gabdhaha channelladooda aan meesha soo saareen naftirkooda ay soo booqdaan marka waxaa la dhihi karaa waa showr oo bilaash ah iyo isdhexgal ku saleysan gabdhaha youtuberka cusub iyo isjecleysi in wax la kala faa'iido oo anaga dhaxdanada aan noqono dad isku challenge gareeyo channelkaasi bilaayo soo fiiri si mar walba qof walba kii cunto karinayo cuntadiisa isaga sii qurxiyo kii qurxi sameynayna qurxintiisa u sii wado kii sheekooyin soo deynayna sheekooyinkiisa sheekooyin qisooyin dhab oo wax ool ay u noqdaan maasha Allah waan ku faraxsanahay barnaamijka sida aan rabay isa ka si fiican inuu noqday adigna waan kaaga mahadcelinayaa maadaama su'aashaas ay weydiisay okay walaashay waxaan kula ku weydiinayaa inta aad bilowday barnaamijkan ma jiraan dad ka hor imaaday aad iyo aad Cayni xabiibtii inta barnaamijkan bilowday dad iga hor imaaday oo badan way jiraan dad badan oo taageerana way jiraan inta iga hor imaadayna waxaa ka badan inta ay taageertay maasha Allah marka hal ama laba qof oo ka hor imaadayna macnaheedu ma ahan in lagu necib yahay ama waxa wada dhaliisan yahay waxa laga yaabaa ayaga naftirkooda inay sixitaan u tahay inuu fursad ka faa'iideysanaad waxaan dhihi lahaa waxaa jira dad badan oo markii qofku wax uu bilaabo xaasidnimo iyo xiqdi darteed dhaho anna wixii qofkaas uu bilaabay aan la bilaabo ama waxaas aan la sameeyo waxaan dhihi lahaa waxyaabahaas qaarkood ha laga waantoobo qof walba fikirkiisa ha loo daayo han lagu taageero haddii wanaag uu yahay hadduu xumaan yahayna qofku xumaan qofku taageerayo malahan xumaanta anaga dhan baa kasoo wada horjeedna soo maha okay ma laga yaabaa dadka qaar ee dhaliilsan barnaamijkaaga ayaga dartood in aad barnaamijkan u joojiso yacni aadan mar dambe aadan u qabanin barnaamij noocan oo kaleete ah aada u mahadsantahay Cayni xabiibti ma laga yaabo qof hadalkiisa ama qof fikradiisa ay qaldantahay dartiis in aan hadafkayga aan u joojiyo ama aan u istaajiyo barnaamijkan insha Allah wuu sii socon doonaa haddii Ilaahay yiraahdo ilaa inta aan ka rabo hadafka aan kale aan ka gaarayo barnaamijyo kaleeto oo ka duwan ama asaga la barbar dhigmano waa soo wadaa insha Allah tacaala okay su'aasha kale aan ku weydiinayo waxay tahay walaashay Fartuun Cali dadka inta badan way qariyaan faa'iidada YouTube-ka maxay tahay waxa laga faa'iidayo mise jira caqabado lagala kulmo horta sax waaye YouTube-ka sidiisaba social media dhan horta faa'iido iyo khasaaro buu leeyahay faa'iidana waa la soo kala khasaarana waa la soo kala wax walba faa'iido iyo khasaaro leeyihiin laakiin anaga hadda ama aniga qaasatan muhiimadda ama hadafkayga koowaad ma ahan kaalay faa'iid oo dhaqaale ama wax kale ku raadso muhiimadeyda koowaad waa inaan hadafkayga
aniga ahmiyadeeda iyo professionkayga oo ama korab saxaafinimo inaan ka miro gaaro oon ka gaaro heer sareeto markaas kadib wixii imaado waa loo joogaa Soomahan dadka qariya inta badan waxa laga faa'iiday YouTube-ka anaga maadaama aan ku cusubnahay hadda oo aan hadda la bilownahay aan faa'iidadiisa wali xoog aan u arkinba dadka qariyan waxaan dhihi lahay wax la qariyo ma ahan qof walaalka oo meel uu soo galay wax aad gacanta ugu hayn waxa ka qarisid ma ahan wixii ka soo gala ama wixii dhib ah kala kulmay ama wixii horumar uu ku gaaray inaa u sheegto aad iyo aad u muhiimsan anigana waxaan u taaganahay intaas ka ah in wixii aniga aan faa'iido u arko ama meeshaas aan ka helo ama aan ka arko dan inay igu jirto inaan la qaybsado dadka walaalaha ee sida hadda barnaamijkan codeynta oo kaleeto oo ah inay gabdhaha isdhex galaan oo u sameeyo kaleeto asxaabteena qaaliga ee Cayni Cadey iyo Fartuun Cali intaba waxaad leenahay waxaan rajeynaynaa khayr caafimaad inta barnaamijkan la mid ah aan ku kulmi doono waxaan idin tagaynaa sidaas iyo bye bye.